kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba oo aad adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Koobka Champions League waa midka ugu qaalisan uguna muhiimsan dhammaan tartamada heerarka naadiyada caalamka. Dhab ahaantiina ku guuleysiga koobkani waa riyada ciyaaryahan walba oo ku riyoodo. Waxaan maanta muuqaalkeena idinkugu soo gudbinaynaa ciyaartoyda Carbeed ee hantay koobka UEFA Champions League ama gaaray nus dhamaadkiisa. Waxaan ahay Harun Yusuf Qasaaro ee ku soo dhawaada xalqadeena maanta. taariikhda waxaa ku xusan in 7 ciyaartooy oo Carab ah ay abid gaareen ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. marka lagu daro 2 xidig oo Carbeed oo sanadkan ka qayb qaadanaysa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka horyaalada Yurub, kuwaas oo kala ah Riyad Mahrez iyo Hakim Ziyech. inta aanan guda gelin warbixintan, daawadaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inaad ku soo biirto barteena YouTube-ka oo subscribe saarto, sidoo kalena haddii aad ka heshay muuqaalkan aad like saarto si aan u soo badino muuqaalada caynkan oo kala ah. 1. Rabah Madjer waa mid ka mid ah xidigihii ugu caansanaa xulka qaranka Algeria ee qaaday koobkii adduunka sanadkii 1990. Madjer waxa uu ku jiray ciyaartoydii kooxda kubadda cagta FC Porto ee soo gaaray ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka horyaalada Yurub sanadkii 1987. waxaana weeraryahankan la yiraahdo Rabih Madjer oo naadigiisa FC Porto ku hogaamiyay guushii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo ay kaga adkaadeen 2 gool iyo gool. waxaana koobkaasi uu ahaa kii ugu horeeyay ee horyaalada Yurub ee ay qaado naadiga FC Porto, iyadoo weeraryahankan Algeeriyaanka ah uu dhaliyay goolkii koowaad ee ciyaarta halka kii labaadna uu isagu farsameeyay. sidaas darteed waxaa Madjer loo aqoonsaday laacibkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee gaara kama dambaysta koobka horyaalada Yurub iyo xidigii ugu horeeyay ee Carbeed ee koobkan dhagweynaha ku guuleysta. 2. Ridwan Hajeri waa laacib u dhashay wadanka Morocco oo ciyaaraha ka fariistay. waxa uu ahaa xidigii labaad ee Carbeed ee ka soo muuqda kama dambaysta koobka horyaalada Yurub, waxaana uu ka soo muuqday finalkii koobka Champions League sanadkii 1988 xilligaas oo uu u ciyaarayay naadiga Portugiiska ee FC Porto oo ay xafiiltamaan kooxda Sporting Lisbon. nasiib darrase, Hajeri iyo kooxdiisii FC Porto waa looga guuleystay kama dambaystii koobka horyaalada Yurub, waxaana ciyaartaas gool kulaadyo ama rigoorayaal 6-5 ah ay guushu ku raacday, koobkiina ku guuleysatay kooxda PSV Eindhoven ee ka dhisan wadanka Holland. inkastoo weeraryahan Hajeri uu kulankaasi fadhiyay kursiga keydka iyadoo la soo geliyay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta. 3. Mahdi Benatia daafacan reer Morocco waxa uu xaadir ahaa kulankii kama dambaysta koobka horyaalada Yurub ee xilli ciyaareedkii 2016-2017, iyadoo Mahdi Benatia uu ku jiray liiskii uu la soo shirtigay tababarihii kooxda kubadda cagta Juventus ee Massimiliano Allegri. ciyaartii kama dambaysta ahayd oo Real Madrid ay 4 gool iyo gool ku xasuuqday Juve kuna guuleysatay koobka UEFA Champions League. 4. Achraf Hakimi waxa uu isna u dhashay Morocco, waxaana uu daafaca kaga dheelaa haatan kooxda ka ciyaarta horyaalka Serie A ee Talyaaniga. Hakimi waxa isagoo u ciyaarayay naadiga Real Madrid uu gaaray kama dambaysta koobka horyaalada Yurub sanadkii 2018 oo ay ka hortageen naadiga Liverpool, walow aysan fursad u saamixin Hakimi inuu dheelo ciyaartaasi kama dambaysta ahayd, maadaama tababare Zinedine Zidane uu ka saaray Hakimi liiskiisa xidigihii uu u soo xushay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka horyaalada Yurub, taasoo 3 gool iyo gool ay ku badisay kooxda Real Madrid. waqtigaasi Achraf Hakimi waxa uu ciyaarta ka fadhiyay dibadda, walow uu noqday laacibkii labaad ee Carbeed ee ku guuleysta koobka horyaalada Yurub, waxaana uu la qaaday Real Madrid maadaama 2 kulan ee hore ee koobkan Champions League uu u saftay Los Blancos. sidaas awgeedna Achraf Hakimi waxa loo xisaabiyay inuu koobka UEFA Champions League la qaaday kooxda ka dhisan caasimadda Spain. 5. Mohamed Salah
laacibka weyn ee reer Masar una dheela kooxda kubadda cagta Liverpool 2 jeer ayuu gaaray gunaanadka Champions League. kulankii koowaad waxa uu ahaa finalkii 2018 xilligaas oo Salah uu soo gaaray dhaawac culus oo garabka ah, koobkiina ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Real Madrid. isla sanadkii xigay ee 2019 Mohamed Salah oo lagu naynaasaday Egyptian King ama boqorka Masaarida, sidoo kalena la yiraahdo The Egyptian Messi-ga Masar, waxa uu soo gaaray ciyaartii lagu soo xirayay koobka horyaalada Yurub oo ay kooxdiisa Liverpool la dheeshay naadiga Tottenham oo ay Ingiriiska ka wada dhisan yihiin. waxaana Salah uu dhaliyay goolkii furitaanka ciyaarta kulankaas oo ay Liverpool 2 gool iyo waxba koobka ku qaaday, iyadoo ay xusid mudan tahay in goolka kale ee Reds kulankaasi uu saxiixay Divock Origi. Salah waxa ciyaartaasi loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Carbeed ee soo gaara kama dambaysta 2 Champions League oo isxiga ama xiriir ah, halka sidoo kalena uu Mohamed Salah noqday laacibkii ugu horeeyay ee Masri ah iyo midkii saddexaad ee Carbeed ee ku guuleysta koobka horyaalada Yurub. Sabtida soo socoto ay taariikhdu ku beegan tahay 29 bisha May, waxa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka horyaalada Yurub isaga hor iman doona kooxaha Manchester City iyo Chelsea oo ay u kala ciyaaraan labada laacib ee Carbeed ee kala ah Riyad Mahrez oo Manchester City u safta iyo Hakim Ziyech oo u dheela naadiga Chelsea. Mahrez oo si fiican uga soo dhex muuqday tartanka koobka horyaalada Yurub sanadkan ayaa waxa uu Manchester City keenay dhamaadka tartanka Champions League kadib markii uu 3 gool dhaliyay nus dhamaadkii tartankan, waxaana ay kala ahaayeen gool uu lugtii hore ka dhaliyay kooxda PSG iyo 2 gool oo uu lugtii dambe ku reebay kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska ee Paris Saint-Germain. guulaha uu Mahrez gaaray waxaa ka mid ahaa inuu dhaliyay 10 gool oo tartanka Champions League ah, waana laacibka qura ee Algeeriyaanka ah ee goolal inta la eg ka dhaliyay koobkan. waxyaabaha kale ee diiwaanka u galay taariikhda Mahrez waxaa ka mid ah inuu noqday laacibkii ugu horeeyay ee Carbeed ee 2 kulan oo nus dhamaadka horyaalada Yurub ah 2 kulanba goolal dhaliyay. dhanka Afrika markii aan tagnana, Mahrez waxa uu ku biiray xidigaha Afrikaanka ah ee 2 gool ka dhaliyay nus dhamaadka horyaalada Yurub marka laga reebo Didier Drogba iyo Mohamed Salah. dhanka kale, xidiga Morocco ee Hakim Ziyech oo xilli ciyaareedkan yimid kooxda kubadda cagta Chelsea waxa uu guuldaro la'aan kaga soo gudbay Real Madrid 4 dhamaadka Champions League fasal ciyaareedkan. lugtii hore ee ka dhacday caasimadda Spain waxay ku soo idlaatay barbardhac gool iyo gool ah, halka lugtii labaad ee lagu ciyaaray caasimadda Ingiriiska ee London ay kooxda Blue ku adkaatay 2 gool iyo waxba, sidaasna ku gaartay kama dambaysta koobka horyaalada Yurub oo ay finalkiisa taagan yihiin haatan. 2 xilli ciyaareed ka hor, Hakim Ziyech waxa uu ka mid ahaa xidigihii kooxda Ajax ee ku haray nus dhamaadka tartanka horyaalada Yurub, waxaana reebtay kooxda reer England ee Tottenham. haddaba labada ciyaaryahan ee Riyad Mahrez iyo Hakim Ziyech waxaa hubaal ah in midkood labadooda kooxood ay ku guuleysan doonto koobka horyaalada Yurub, waxaana midkii kor u qaada koobka dhagaweynaha uu noqonayaa laacibkii afraad ee Carbeed ee ku guuleysta koobka UEFA Champions League marka laga reebo Rabih Madjer, Ashraf Hakimi iyo Mohamed Salah. daawadaha qiimiga badan oo waad ku mahadsan tahay inaad nala soo gaartay gabagabada muuqaalkeena maanta. walaal haddii uu ku xiiso geliyay muuqaalkan like saar, haddii aadan hore noola joogina subscribe saar oo ku soo biir barteena YouTube-ka. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waa inoo biri iyo muuqaalkeena xigay insha Allah. waa inoo biri iyo